3 waa dadka ugu deegaan weyn Muqdisho ka soo bilaw Wardhiigley ilaa ku geey Afgooye ilaa ku geey muxuu ahaa Soonakey waa dhul mursade oo 3 ah markaan waxaan u yeerayaa si ay fikirkeeda u dhibato Khadiijo Xaaji Xasan Ceente. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ku hadlaaya magaca 3 runtii waxaana soo gaaray damage aad aan looga waqsanaynin damagekaas oo ah nin dhulkiisii iska leh haddana la dhahaya dhulka baan kuugu sheegayaa inaan qaybkaas siiyo marka waxyaalahaas camal waa foolxumo cadaaladii aaway dowladdan cadaaladeedii aaway marka gudoomiyaha waxaan leenahay waad fududaatay ka noqo ummad cadaalad ah ayaa qurux badan in ay dowladdu inay cadaalad noqoto annagu shicib baan nahay dhulka annagaa iska leh taariikhda dib u baar Soomaaliya waagii leegadii waxaa iskugu yimid Abgaal iyo Mursada iyo Heer Xamar haddaan taariikhda dib u noqotid ninkii maalinta hayay warqadda iyo qalinka aad maanta haysid wuxuu ahaa Crowley oo Talyaani ah wuxuuna xukumay inuu Mursade uu leeyahay kursigaasoo uu fadhiistay علي ورديغلي الله يرحم الراحمين تاريخنا ديب وبرو تاريخنا وين ديب لون نخذا تاريخنا إن لبرتو تاريخنا إن لأركو داد كلا نوو قبسنا يا حمر أنا قاعد إسكاله 3 با إسكاله marka taariikhda been ma sheegayso qaramada midoobay u tageena adduunyada kuwa dawladda maanta maamushaan agtageena dacwad baa ka jirta heeg baan joognaa ingiriiskan joognaa waxaan naqanaysaa in ka socota ama ka soo jeeda beesha Mursade ee 3 aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin boqolkiiba boqol marka xigta waxaan halkan baaq ugu diraynaa dawladda federaalka ah oo uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud anoo ku hadlay magaca gabdhaha Mursade waxaan aad iyo aad ugu xumaanay oo aan ka tiiraanyoonay in annagana laga dhigay dad aan waxba ahayn oo cadilba loo tuuray waxaan halkan dawladda federaalka uu hogaamiyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud aan halkan ugu dirayaa baaq dheer baaqaas oo ah dadka loogu yimid gobolka Banaadir in ay yihiin anoo Mursada ayaa gobolka Banaadir loogu yimiday qofka in la xaq dadkana in la xaqiro ma fiicna gobolka Banaadir wuxuu u degilaayahay waa cadaalad xumo iyo ana qalinka haysta iyo xaanshida ana meesha mas'uulka ah ayaa dadka masaakiinta ah ee gobolka Banaadir u dhashay ayaa lagu xaqiray annagu waxaan ka midnahay bulshada lagu xaqirayo ee dawladda federaalka ay ku xaqirayso gobolka Banaadir waxaan halkan baaq dheer iyo mid gaabanba ugu dirayaa qaramada midoobay United Nationska midowga Yurub midowga Afrika IGAD dawladaha Carabta dhammaan shacabka Soomaaliyeed xaqdarrada ay naga galayso dawladda federaalka ah maanta mudane Xasan Sheekh Maxamuud dambi baad naga gashay haddaan nahay Mursade dambigaasoo ah anoo gobolka Banaadir iska leh oo Mursada ayaadna xaqirtay aad waxaad tiri waxaad ka tahay gobolka Banaadir ma lahan wadanka adaa madaxweyne maanta ka ah doorasho cusub ayaa soo socotay 2016 ah annagu waxaan la xisaabtamaynaa dawladdan way dhacday dawladda cusub oo imaanaysa ayaan la xisaabtamaynaa Soomaalnima u taagannahay dawlad jacayl baan u taagannahay Mursadeena la yiraahdaa qaranimaan maalin walba dawladeena ku taageernaa laakiin maanta waxaa cadaatay Soomaalinimada aan ku taageerayo dawladda inay aniga xaqirto Mursada dad dulmi mayno dad dhulkiisa ma rabno annagu dhulkayna xaq aan ku leenahay gobolka Banaadir ayaan u baahannahay taas oo ah gobolka Banaadir cidda cawska iyo caanaha keenta waa Mursade waadna ogtahay Soomaaliya waxay qaadatay federalism gobolka Banaadir original dadkii iskala waa Mursade Soomaali weyn anaga gogosho u dhignay marka maaha anaga waxa fadhiya abwaankeena weynaa Masar Daahir Socdaal ku soo dhaw Soomaaliya u qiiciil waxaad hadaf wadaagtaa ninkii laga hayaame wuxuu heeriye saaro hamaha ku dhaansado awr qorkaas ratiyo haysta ee harkii gigay waraabo ratiyo oo kaligiisa waa laga tagay harkii gigay waraabo harka cunay intuu hooy ka oran la ama haaban la waran qosol heela uga dhig oo ku qoslay ratiga inuu xayawaan day ratiga oo ku guur lahayaa waraabo cunay soo wiibo soo fiirs asawiri qosol oo dhacay ratiga dhurwaaya cunay
walka ratu adduunka ka haysta taas waxa habkeeda xasan maalisteedii iyo hilbaduwashadeedii ma wax la isla helayaa inaan hasha qabanno oo aan ilbeedii qaybsanno iyo inaan caanaheeda maallo ma wax la isla helayaa ma wax la israaci karay xasan sheekh maxamuud iyo maamulkiisa inuu maamul noo sii hayo tanano qaran noqoto oo waxaan dhicin shayga aan la yaabanahay ayaa wuxuu yahay madaxweynihii guddoomiyihii gobolka guddoomiyihii haddii ku reeyay duqay magaalada kii dekada kii haddii ku reeyay airportka taliyihii nabad sugudda aqli talinahay cid qabataa meeshana ma joogto dadka historiga yaqaana siday sheegeen